madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa heshiis la saxiixday kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gaartay magaalada Dhuusamareeb. waxaan maantay ku soo dhaweynay caasimadda galmudug madaxtooyada dowladda galmudug wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobay ahna sihayaha miskiiki oo runtii aan ka wada hadalnay ama maanta kulankeenu ku saabsanaa arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo marka hore waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada galmudug kusoo dhawaada caasimadda galmudug arrimahan aan ka wada hadalnay waxaa ugu muhiimsanaa maanta inaan kala saxiixanay ama aan dhammaynay xaruntii qaramada midoobay ee galmudug inay laga dhiso caasimadda dowladda galmudug lagana howlgalo hawsheedii ay la bilaabi rabo haddaba ay bilaabanayso oo runtii ah maantay xafiiskaasi xafiis ahmiyad weyn u leh galmudug aada muhiim ugu ah muddooyinkan dambena hawlihiisu soo socdeen ugu dambeynna maantay ay soo dhammaatay dhammaan arrimihii ku saabsanaa xafiiskaas oo shaqadiisii hadda ay bilaaban doonto inta aad iyo aad bay intaas maanta noogu ahayd fursad weyn oo aan muddooyinkan dambe ku taamaynay ama aan soo wadnay hawshiisa sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha dib u xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada oo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaana galmudug hadda si xooggan uga socota meel fiicanna maraysa iyo sida ay tahay in laiskaga kaashado ama aan gacanna lakaga siiyo oo ay la xiriiraan arrimo badan arrimaha dib u xoreynta oo ay ka mid tahay xasilintii deegaanada laga xoreeyey argagixisada in la gaarsiiyo ama dadkii la gaarsiiyo adeegyo iyo service ay muddo dheer ka maqnaa ama aysan heli karin ay argagixisadu cinqaabayeen ama ay godoon ku hayeen taasna waxaan ka gaarnay safgarad iyo runtii idadiilo wanaagsan aan rajeynayno inay qaramada midoobay gacan weyn naga siin doonaan arrintaas runtii aad iyo aad waxay noogu tahay arrin muhiimadeeda nooleh sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha bani aadamnimada oo guud ahaanna dalka abaaro muddo soo jiitamayay ka jiraan gaar ahaanna deegaanada laga xoreeyo argagixisada ay yihiin deegaana hadda baahi gaara ama duruufo gaar ay ka jiraan oo taasna ay tahay in ay la xiriirto arrintaas inay gacan si gaar ah nalagaga siiyo oo runtii iyadana noo leh arrimaha baniaadamnimada muhiimad gaara noo leh aada iyo aad guud ahaan arrimihi aan ka wada hadalnay oo ay ka mid ahayd sidoo kale dhinaca booliiska oo ay gacan naga siisay qaramada midoobey gacan naga siisay oo iyadana runtii wax badan nooga qabsoomeen iyo wax noo dhiman aad iyo aad baan mar kale maanta ay noogu ahaa shirkan ama kulankaani muhiim noogu ahaa galmudugna fursado waaweyn ayay runtii ay ka soo baxeen oo nooga soo baxeen haddana aan rajo weyn ka qabnaa waxyaabaha dambe oo noo qabsoomi doona mar kale waxaan leeyahay ku-xigeenka ergeyga gaarka ahna sihayaha ergeyga gaarka ah waxaan leeyahay mar kale adigii wafdigaaga soo